nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay suuratul ikhlaas tacdilu thuluthul qur'aan. suuratul ikhlaas waxay u dhigan tahay qur'aanka saddex loo dhigay u dhigan tahay. haddii aad akhriso suuratul ikhlaas 3 jeer waxay la mid tahay adigoo akhriyey qur'aanka dhammaan adigoo akhriyey ajirkiisa ayaad helaysaa. haddaba suuratul ikhlaas fadliga ee leedahay haddaan ka hadalno, saxaabada ka mid ah masaajid imaamka ahaa ayaa wuxuu ku dujin jiray mar walbo ayuu salaada ku dujinayay suuratul ikhlaas. jamaacadii halkaa joogtay salaadii ku dukanaysay ayaa arrintaa ka carootay. marka ay u tageen ninkii ay ku yidhaahdeen mar walba waxaa ku dujisaa suuratul ikhlaase sidee bay wax u jiraan. markaasuu wuxuu ku yidhaahday furihiin iga qaata. sug ayuu ku yidhaahday, sug ayay ku dhaheen. way baxeen, nebiga ay u tageen ayay ugu dacwoodeen. waxay u sheegeen nebiga sallallahu calayhi wasallam ninkaani mar walba oo salaada uu galayo ama uu dujiyo inuu suuratul ikhlaas akhriyo. sidaa daraaddeedna arrintaa ay dhibsadeen. nebiga sallallahu calayhi wasallam ninkii ayuu u yeeray ayuu wacay. markaas wuxuu ku yidhaahday maxaa kugu kalifay inaad suuratul ikhlaas mar walba aad akhriso. ninkii ay wuxuu ku jawaabay suuratul ikhlaas waan jeclahay ayuu yidhaahday. nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhaahday jaceylka aad jeceshahay adiguna jannou ilaahay kugu arsaaqay oo ilaahay jannou kugu bedelay. fadligaas ayaa leedahay suuratul ikhlaas. waxaa ku sii jiro suuratul ikhlaas dhexdeeda ism min asmaa'i illaahi tacaala, magaca oo ilaahay subxaanahu wa tacaala magacyadiisa ka mid ah oo kuwa magacda ugu waaweyn ismullaahi alacdam ah, sida assamad oo kale ayaa ku jirto iyo axad oo kale ayaa ku jirto. haddaba suuratul ikhlaas ka faa'iidayso. saxaabigaas suuratul ikhlaas darteed ayuu nebiga sallallahu calayhi wasallam jaceylku u qabo ayaa janno loogu bishaareeyey. haddaba fadligaas ayay suuratul ikhlaas leedahay.